soo degitaanka nabi ciise calayhi salaam uu soo degi doono aakhiru zamaanka. nabi ciise calayhi salaam wuxuu ka soo degi doonaa magaalada Dimashq ee ku taala waddankan Syria. masaajid minaaradiisu ay caddahay oo dhinaca bari ee magaalada ku yaala ayuu ka soo degi doonaa. wuxuu soo degi doonaa xilli ay ku beegan tahay salaad subax, isagoo 2 malag garbaha haysta. markuu saa u soo dego oo masaajidka soo galo isagoo dharkiisii dagaalka wata, ayaa dadka masaajidka muslimiinta ah wejigooda intuu masaxo qof walba wuxuu u sheegayaa darajada uu jannada ka galayo. markaasay garanayaan inuu yahay nabi ciise calayhi salaam. xilligaas waxaa jooga mahdiga oo imaam u ahaa muslimiinta. markaasuu wuxuu ka dalbayaa inuu salaada tujiyo nabi ciise calayhi salaam. nabi ciise waa uu diidayaa, isagoo ku sharfaya in ummadda nabi maxamed calayhi salaam salaadooda iyagu ay imaam ka noqdaan. marka salaada subax laga baxo ayuu nabi ciise calayhi salaam wuxuu gelayaa inuu raadiyo masiixu dajaal.